yurub waxaan ku arki jiray abti baa la soo hadli oo adeer baa soo hadli oo ina abti baa soo hadli adeer baa soo hadli dadkan caydh baa la siiyaa caydhu noloshooda ay ku jaan go-anta markay $200 soo diraan bishoo dhammaanin baa biilku ka go-a dadkan yurub joogeen maqlaysaan boqolkiiba 90 biilku wuu ka dhammaadaa markay $100 ay soo diraan xaggee ka keenaan inta badan dadka biilka caydhee la siiya waxaa lagu daraa habeenaha axadda ah inay kalaabyada aadaan waxay ku aadi lahaayeen caruurtana waxbaa la siiyaa in meel loo yar dhigo oo hadhow jaamacado lagaga bixiyo ama dalxiisyo lagu geeyo ah dalxiisna ma geeyaan kalaabna ma aadaane intiibay qaraabada u soo diraan intii yaray abti baa soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo abti baa soo hadlay oo adeer baa soo hadlay oo hooyaa soo hadashay oo aabbaa soo hadlay oo awowbaa soo hadlay iyaas ashyaa loo diraa intaa xagga gabadha markay ka soo hadashay intaa ilagin xagga aabbahay ka soo hadashay reerkiina caydhaasaa la qaataay oo u dhaxaysa sabreed ha la galo ha la isku laayo kana loo diri maayo reerka yaga ma rabtid kaayagaa diidan tahay dagaalka qoyska wastareenka jooga boqolkiiba 70 wuu burburay waxaasaana burburiyey boqolkiiba 40 ka mid ah waa qaraabada bannaanka ka soo wacaysa ee telefoonada meesha ka diraysa mid biilkaasiyo wallaahi dab 2 shilin buu kule u dharagsan yahay bal idan qaaday abaaraha waxaan wada balaayana ilaahay la weydiisanayaa ka mid saas darteed qaraabadu faragelintay ku haysaay haddayna ka daynin reerka waxaa loogu talagalay xigtaa tahay reerkan waa dhisan yahay amar ma lihid wixii kuu go'i kara ka qaado iyaguna waxay awoodaan silatu raxim ha ku sameeyaan laakiin geedkan la harsanaya ha dumin waxa wax loo soo dooranaya ay qaraabana soo martiyaysa waa inta ay jiraan soomaalidu inta ay jiraan intii baa la duminayaa iyagiina waa la kala dirayaa wixii laga helayena kadib waa la waayayaa saas darteed waxaan rabaa inaan idhaahdo faragelinta qaraabadu waa khatar badan oo qoyska soomaaliyeed haysata qaybo badan mujtamacaadka muslimka ina lama qabaan qodobkaas reerka degan ee qaraabada ah faraha laga qaada wixii ay u tari karaan dadkoodana way u taraan faragelinta iyo dhexgalkana ha laga daayo oo waxaan saa u leeyahay hadalka ugu celcelinayaa inta da'yartaa intay muuqataay berri waalid bay noqon laakiin inta waalidkaad u badan tihiin gabdhihiinna haddaad guurisaan ama wiilashiinnu gabdho guursadaan faragelinta iyo wax ka maamulka iyo gacmogacmaynta iyo culayska ka daaya berri markay muddo joogaan ee reerkii si fiican u dhaqmaan iyagaabaad midhahooda goosan doontaan bini aadamkuna wax weydiisiga badan iyo dhexgalka badan uu kugu nacaa haddaad waalidkii aad ka daysaan arrintaas iyagaa idin jeclaano idin soo raadin doona haddii laakiin aad lugta ku walaaqdaan dee iyagana waa duminaysaa idin wax ka dheefi maysaan